Dowladda Ruushka ayaa waxaa lagu waramayaa inay sameysay tijaabo kale iyo dhoolatus militari oo aad u xooggan, waxaana la isticmaalay gantaalada nuclear-ka xambaari karaya, gaar ahaan nooca Yaris la yiraahdo, iyo gantaalo kale, taas oo ka dhigan baa la yiri u diyaargaroobidda dagaal adag oo ay la galaan wadamada qaaradda Yurub. Waddanka Ruushka, qaar ka mid ah dalalka qaaradda Yurub ayaa walaac xooggan ka muujiyay, waxa ayna rumaysan yihiin in Ruushka uu awoodiisa tijaabiyay markii uu Ukraine ka soo farxashanay uu doonayo inuu qaaradda Yurub bartilmaameedsado, si gaar ahaaneed dal kale oo ka tirsan gaashaanbuurta NATO, kaas oo xadla wadaaga dalka Ruushka. Dhoolatuska maanta waxaa lagu tilmaamay midkii ugu xoogganaa oo ay ciidamada dowladda Ruushka sameeyaan, waxaana arrintan ay muujinaysaa u diyaargarowga dagaal adag. Gantaalada nooca Yariska la yiraahdo waa mid ka mid ah kuwa guurguura ama marba qayb la geyn karo, waxaana ay ku habboon yihiin baa la yiri bartilmaameedsiga xarumaha ugu muhiimsan ee gantaalada. Inta dhoolatuska uu socday, ciidamada ayaa sameeyay tababaro kala duwan, waxa ayna ku tababarteen qaabka looga hortagi karo weerarada qarsoodiga ah, sida looga hortagi karo weerarada tooska ah iyo la tacaalidda sunta kiimikada, taasi oo muujinaysa Ruushka inuu diyaargarow sameynayo, sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ruushka. Tallaabadan waa qayb ka mid ah dhoolatus weyn oo lagu xaqiijinayo awoodda gantaalada istiraatiijiga ah ee dowladda Ruushka, iyo in si buuxda ay ugu shaqeyn karaan duruufaha kala duwan ee dagaalka iyo midka deegaanka, oo muujinaysa Ruushka inuu diyaar garoobay markaan dagaal adag oo xilliyada kala duwan, haddii qaboobaha lagu jiro ama kulaylaha, oo ciidanka u diyaar garoobaan sidii ay u gali lahaayeen.